shirkadda isgaarsiinta ee Telesom iyo Salama Financial Service ayaa maanta daahfuray adeeg casri ah oo loogu magac daray Kaafi kaasi oo aad moobilkaaga aad ka isticmaali karto lacagta aad dhigato Salama Financial Bank. munaasabadan daahfurka waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Telesom iyo Salama Financial Service halkaas oo ay kelmado kala duwan oo ku saabsan adeegan Kaafi ay ka soo jeediyeen. ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Cabdisalaan Ismaaciil Saalax oo ah madaxa suuqgeynta iyo xiriirka dadweynaha shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. ogtihiin kambaniga Telesom ama shirkadda Telesom waxay leedahay shirkado kale oo partner la ah ama waa kambani runtii shaqooyin badan ku foogan marka laga reebo telecommunication ama isgaarsiinta oo uu caan ku yahay. waxa maanta halkan aan ugu soo bandhigi doonaa runtii iyadoo u dayn doono hadalka nuxurkiisa halka aan ugu talagalay Salam Financial Institution oo runtii in badan aad maqlayseen inuu runtii ka mid yahay institutionada waddankeena ka shaqeeya dhinaca maaliyadda iyo xiriirka ka dhaxeeya sad service oo runtii isagoo aan u baahnayn la taariifiyo ama la tilmaamo. sidoo kale waxaa isna goobta daahfurka ka hadlay Maxamed Ibrahim oo ah madaxa Salama Financial Service oo ka warramay adeega Kaafi iyo waxqabadkiisa iyo faa'iidada uu leeyahay Salama dadweynaha. Salam Financial Service oo muddo hadda ka shaqeynayay dalka. Salam Financial Service waa xarun ama waa institution ama waa hay'ad maaliyadeed oo u shaqeysa sida ay u shaqeeyaan bunuugta caalamka oo kale. waxa la aasaasay ama laga furay xarunteennan Hargeysa 2010 bishii afraad kal hore. xaruntu waxa weeye adeegyo badan oo maaliyadeed bay bixisaa. waxa ka mid ah adeega maaliyadeed ee uu bixiyo marka hore macmiilka ama customerka waxa uu u fidiyaa inuu ka aqbalo wixii la yiraahdo dhigaalka ama depositska. waxa kale oo uu bixiyaa adeeg ah in qofku uu qaadan karo markasta oo uu doono dhigaalkiisaas. waxa uu ka dhigan tahay macnihii waxa laga furaa oo ka shaqeeya accountiska ama xisaabaadka in laga furan karo xaruntan. marka xaruntu waxa kale oo ay bixisaa adeegyo badan oo uu ka mid yihiin xawilaadda lacagaha. Cabdiqani Xariir oo ka mid ah shaqaalaha Salama ayaa ka sheekeeyay adeega cusub halka uu ka yimi iyo sida ay Salama ugu suurto gashay in moobilkaaga lacagta kuugu jirta aad ka isticmaali karto Salama Financial Service. ilmaha cusub ay u walqalanayaan Sad iyo Salam oo magaciisa la yiraahdo Kaafi ayaan maanta u walqalaynaa oo bartan aynu ugu walqalaynaa ilmaha cusub magaciisa ayaa ina kaafiyey. wixii naga kaafiyey Salam oo hore loo sheegay warkeeda, Sad oo iyaduna uu ka sii horeeyayba sheegista warkeedu kaas oo labadaba laga dharagsan yahay. haddaba arrinta cusub walqasheedu ay noo taagan tahay muxuu yahay Kaafi muxuu qabanayaa aabihii hooyadii iyay yihiin aabihii hooyadii Sad iyo Salam bay yihiin. horta waa adeega labadooda kulmiya oo ay labadaasi iska kaashadeen. Sad aynu hore u naqaanay, Salam aynu hore u naqaanay iyo Kaafi oo maanta aynu fadhino xarunta ku baran lahayn madasheena ku baran lahayn. yaynan hadalka sii dheeraynin si aan mawduucu inooga baydhin. Kaafiyow maxaa tahay, maxaad qabataa, sidaad u shaqaysaa, goormaa la isticmaalaa, maxay faa'iidadiisu tahay? waxaa soo dhami waa waxyaalaan doonayno inaan maanta soo bandhigno. haddaan ugu horreysiino Kaafi sidaan hore u xusnay Sad iyo Salam oo isku jira oo la isku xidhay ayaad ka isticmaalaysaa Kaafi.
gabagabadii madasha waxaa hadal dheer ka soo jeediyey madaxa adeega saad cabdiraxmaan aadan shire oo ka faalooday adeega saad iyo salaama runtii ugu dambeeyay ee aan ku soo kordhinay adeega ee runtii adduunyaduna maanta hal kale u socotaa mobile money ama mobilkii oo ah aalada yar ee qof kasta oo waxa weeyaan wadanka adduunka ku nool uu sito iyo in financialkii waxa weeyaan ama dhaqdhaqaaqi dhaqaale in la isku xiro